arrimood ba barashada rasmiga ah uu sababa qofka uu yaqaan marka la leeyahay waxa la yiri jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la seexatay saddexdaba Cismaan wayna dhaxmareen anaga oo 4 bilood iyo barbaanu wada safraynay meel wada jiifsanaynay oo aan wada joognay marka waxaan isku tirinayaa dadka khaliifka yaqaan inaan kamid ahay inkastoo la iga badin karo aqoontiisa waxaan caawad taaban lahaa anigu qodob khaliifka iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland dhexmaray marka bal khaliifka waxaan idin barayaa caawa khaliifye kale oo idaan aqoonay bal qorta waxaanu la kulanay madaxweynaha iyo khaliifku way kaftameen madaxweynuhu wuxuu ku yiri khaliif halkeed ku maqnayd sidee ku arki waayay ninkaaga waxaan oo dhan baaray ee ma garanaysaa khaliifkuna wuxuu yiri aanu madaxweyne siyaasadii waxa kuma jire ciyaalkan wax baraayo halkaasan ku mashquulsanahay wuxuu yiri waayahay khaliif horta buugaaga waan dhameeyay 4 page marka laga tago waan wada akhriyay boqolkiiba 90 aan kugu raacsanahay meelaha aan dood ka qabana anigoo aan madaxweyne ahayn baan ku sheegi doonaa dabadeetana wuxuu yiri waxaan ku weydiiyay khaliif dhowr iyo 90nadii berigii aan laascaanood imiday ma kuwii shiiday baad kamid ahayd khaliifku wuxuu yiri anu waan aad baan uga naxsanahay saa u sheekaysanayaan khaliifku wuxuu yiri ma madaxweyne berigaan weyn baan laakiin kuwa ku shiiday ma soo diray anigu markii hore haasawoodu bilaabmayna wuxuu ku yiri Muuse Biixi si aragtidaada siyaasiga ay sheeg wax xisaabtan iyo waxan xageed kaga jirta adigu madaxweyne gida siyaasadana kuma jiree mee waan u baahanahay inaad sheegto hadaba way siyaasadda aan gaar kugu sheega bartay noo sar marka miiska waxaan ku fadhinaa ilaa 5 qof meelaha ayaan qiyaasaya deetana wuxuu yiri madaxweyne wuxuu yiri anu waxba ma qariya caloosheed wax ma qaadee hadaad gaar igu sheegto waan sheegayaa kulliibe halkan igu sheeg deetana wuxuu yiri madaxweyne siyaasadii ma jirtee qolihiinii jabhadaha ahaa ee baxay dhowreysaga qoladiinii jabhadaha ahaa buuri SSDF iyo SNM iyo waxaasi 30 sano kadib wixii aanu haysanay naga burburiseen wax la mid ah wali nooba haysaan ma siyaasadii ma jirtee naga daabu kuuri oo qoslay markaa madaxweynuhu kursigu la jeesaday deetana kaftankooda uu sii socdayo wuxuu yiri Cismaan baa yiri madaxweyne waan ku sheekeynayaa ay dhageyso 3 arday baan macallin u ahaa buuri 3 arday kii ugu horeeyay ee soo habsaamay ayaan ku yiri maxaad ku habsaanto wuxuu yiri waxaan ku habsaamay shilinkii nus saacaha iga lumay deetana kii ku xigay baan haddana weydiiyay maxaad ku habsaanto wuxuu yiri madaxweyne shilinkii kan kalmay baan la raadinayay saaxiibkay kii saddexaad baa wuxuu yiri aan ku yiri maxaad ku habsaanto wuxuu yiri shilinkii labadina raadinayay ma ku taagnaa madaxweyne macallin marka khaliifku wuxuu yiri shilinka ka ku taagan waa dhul bahanta oo aniga waana ku taagnaanayaa ilaa intaas waana ku taagnaanayaa ilaa intaad waxaynu wada ogolnahay aad ogolaanaysaan dabeetana madaxweynuhu qoslay kursiga la jeesaday ku yiri shilinka miyaad isugu taagantahay mise wada nuugu taagantahay madaxweyne waa isugu taaganahay imka anaga isugu taagan intaas waxay ahayd kaftan aad u qurux badan oo Muuse Biixi iyo Cismaan Cabdinuur Xaashi dhexmaray way Cismaan waxaan u soo jeediyay jaamacadda Hargeysa waaxdeeda luuqadaha oo Gaariya School of Languages la yiraahdo inuu madax ka noqdo marka waxa wasiirka ahaa wasaaradda waxbarashada nimaan aad saaxiib u nahay Cismaan Nacasuumay oo aan aad u sheekaysanay Cismaan wuxuu igu yiri waxaan ku leeyahay Cismaan halkana kaaga fiican laascaanoode waa tan caasimadda la isugu wada yimaadee jaamacadda Hargeysa waaxda afafka iska qabso mushaar fiicanna wad ka heli Hargeysana iska deg wuxuu yiri meene laascaanood baan xil ka weyn ka hayaayo lacag baad ii sheegaysaa imika wax ka weyn baan laascaanood u joogaa buuri
فيدي وحن مشاهر كني وحن كشاكين سوى حكوين بالأسعانود حل كوين بيجا صارن وان كت ماشي هرجيسو وان كتجني يعني خليفكو وحن تجني حمر بعد سكور عني وحن عسومي سفيرك جيبوتي أو فرديا سفيرك صومالي أو فرديا جيبوتي نلقى أمباسدور آدم حسن آدم بن عسومي وحن كشاكيسني هجانك صومالي سبيكين بين waxaan jeclaystay Somali speaking been inuu madax ka noqdo Cismaan Cabdinuur Xaashi maalintaana safaaradda Djibouti aan fadhinaaye xamar wuxuu yiri khaliifku laascaanood baa ii baahanoo Somali speaking been gudoomiyaheeda ma doonayo waan ku daalaya caawa hadaan sheego inta fursadeed ee Cismaan Cabdinuur Xaashi aanu soo bandhigay ee laascaanood uga lacag badnaan lahaa oo khayr badnaan lahaa ma oranay uga lacag badnaan lahaa ee uu diiday sababtu uu diidayna waxa weeyaan inuu reer laascaanood la joogo inuu wax baro inuu wacdiyo iyo inuu dhiirigeliyo Cismaan anu xagga qoraalka hadalka la igu yeeray laakiin meel kale aan iska galay raaliga hado xagga qoraalka hadaan soo daadego Cismaan Cabdinuur Xaashi kowda habeenimo ama labada habeenimo ayaan muddadii aan anagu wada deganay 4 bilood iyo barkii buuga hor yaale wax ku baarayo intaan ka laabo ayaan meel ka saari jirayo dadna khaliif xilliga wax la qori jiray way dhamaatay iska seexan ku oran jiray marka hodeel maqsinkiisa aw galana waxaan arki jiray intaan saaw eego isagoo warqadii qalin kala soo baxay wax sii baaraya marka deetana subaxdan oran jiray khaliif xalay saacad bas seexato wixii oran jiray wallahi ma baan seexane xisaab quraanka ku jirta ka shaqeynayo way ii xidhmi weeyday Cismaan Cabdinuur Xaashi waa philosopher anu waxaan idhi waxa weeyaan waa mufakir Soomaaliya oo islaami ah bal inta isku kiin waafajiyo waa mufakir Soomaaliya oo hadana islaami ah binaadmigu 5 nooc bay wuxuu miisa 4 nooc bay wuxuu miisaamaan nooc shanaad ma jiro qof markaad ku tiraahdo wuxuu ku oranayaa waxa diintu ma ogola qofka miisaankiisu waa diinta qofkaana dhaqanka waa de magaranaysaa miisaan qofna waxa waa science-ka oo waxbaad u sheegaysaa wuxuu ku oranayaa waxaas scientific ma aha niga daaniyo science ma aha waxaas ya hal waxa soo haray qofka ugu dambeeyo oo ah qofna aqliga oo miisaan oo wuxuu ku oranayaa waxaas aqli gal ma aha marka Cismaan Cabdinuur Xaashi waxaan ku arkay waa mufakir Soomaali ah oo dhaqanku sees u yahay oo islaami ah oo wax kasta ku saleeyo diinta ku dheeraan maayo waa dhiirigeliye dadka Soomaalida oo dhan buu Cismaan Cabdinuur Xaashi ku dhiirigeliyaa sidii hankoodu ay u dhisan lahaayeen wuxuu ku booriyaa facweynaanta taariikhda dhulkooda iyo hodannimada khayraadka dhulka ku jira halkaasna kaalmahan caawa la sheegay kuma jirtee khaliifku waa dhiirigeliye weyn oo wuxuu rajadooda dhisaa malaayiin Soomaali oo meel kala duwan joogta waan soo gabagabeynayaa hadaba khaliifka aan ka sheekeynayo oo dhani horta khaliifka aan ka sheekeynayo hadii aanay Aamina Yuusuf jirin maynu maqalneen